بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي بام مهدله waxaan joogaa Center Xawtaako waxaan rabaa halkan in ay raahdo ummadda muslimiinta ummadda Soomaali Ramadaan Kariim Ilaahay Ramadaankiisa nagu gaarsiiyo caafimaad cimri dheer cibaado suuban inta jirna Ilaahay inuu caafiyo inta dhimata Ilaahay u naxariisto aan Ilaahay ka rajaynayna alxamdu rabbil caalamiin midda kale waxaan rabaa warkii waa la igala horeeyay war badan ma qabo laakiin waxaan rabaa laba fartiin inaan halkan ka diro waxaan rabaa annaka dalka Soomaaliya alxamdulillah dalka la malihin waa dalka yagii waxaan rabnaa hadii Ilaahay idmo oo idanka alla ka dhigo ayaan dhawaad qalqal ayaan nagalay dagaal la qaadaya waxba dhacaya xabado badan jidkooyooyin badan adiga problem badan waa walaahownay laakiin alxamdulillah hadda waxaan u jeedaa in la doortay baarlamaanka intiisi badnayd ay soo galeen lisay rabaan baa ku soo galeen qofku soo rabaa ku soo galo aniga taas gadaal uma raacay Ilaahay baa asaguna waa is ogyahay qof walba sidii uu ku yimid marka mar raba taas inaan faalee laakiin intii badnayd maadaama ay soo gashay la dhaariyay maxay ahayday la dhaariyay haddana ay doorteen guddoon horta oo hambalyeynaya waa bilowgii anigu waxaan ku jiray dadka aaminsan qof iyo cod oo ka soo horjeeday doorasho dadban anigu doorasho dadban waa ka soo horjeeday markay ku shiraayeen madashu dhuusamareeb 1 dhuusamareeb 3 dhuusamareeb waa ka qayb galay shirarkaas waa tagi jirnay waxaanan dhigi jirnay waa in la helaa qof iyo cod wixii aan ka baqaynana waa waxa maanta soo baxay ayay noqdeen laakiin kulley waxay noo sheegeen waagaas qof iyo cod suurtagal inaysan ahayn laakiin wax inay ku heshiinayaan waxay ku heshiiyeen waxay noqotay doorashadan dadban ma raba marka gadaal inaan ugu noqdo waxaan rabaa inaan u hambaliyo guddoonka la doortay oo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka waliba guddoomiye ku-xigeenka si gooni inaan ugu hambaliyeen rabaa waa gabar Soomaaliyeed waxaan hubnaa inay maanta matalaad heleen haweenka Soomaaliyeed waxaan rabnaa marka gabadha Soomaaliyeed oo u hambaliyeen inaanay qabiil ku milmin inaysan siyaasado kala raacin inay ka shaqeyso arrimaha haweenka maadaama ay haween tahay waa wixii aan raadinayna haweenku inay matalaad ku yeeshaan meelaha go'aanka la isaga gaaray maantana nasiib gabar baa u yeelatay gabadhaas waxaan rabaa si gooni inaan ugu diro markaan u hambaliyay kadib inaan ugu diro baaq inay dhaqaajiso mashiinkii haweenka Soomaaliyeed oo maxay ahayday wax laga 4 sano ugu dambeysay hal xeer ama hal nudqo oo maxay ahayd ku saabsan haweenka Soomaaliyeed oo baarlamaankaas uu baasmariyay ma jirin marka waxaan leenahay tii ku guuleysata Allah ka dhigo annaga garbahagan taagana waa kula shaqeynaynaa midda kale annaga markii laga soo laabtay Carte waxaan madaxweyne soo noqday Cabdi Qaasim waxaa ku xigay Cabdullaahi Yuusuf waxaa ku xigay Sheekh Shariif waxaa ku xigay madaxweyne Xasan Sheekh waxaa ku xigay madaxweynaha hadda jooga oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aniga midkoodna uma shaqeeyo midkoodna mushaar ima siiyo midkood xiriir gooniya lama leeyahay laakiin waxaan rabaa dawladnimada Soomaaliya ayaan danaynayaa intaas sanana waxaan u soo halgamaynay in Soomaaliya ay dawlad noqoto laakiin waxaan qiimeynayaa ama aan ku kala jeclaan doonaa wax qabadkooda iyo dalka iyo dadka Soomaaliyeed ee burburay maxay ahayday dhibaatada gaartay maxay ahayday baaba'ay qof walba soo doona ka yeelay wadan walba sudanihiisa uu ku fushanayo hadba dhinac laga ruday hadba dhinac laga cantuugay midba meel danooyin shisheey waxaan ku qiimeynayaa marka madaxweyne kasta oo soo maray meesha uu ku fiicnaa oo la dhihi karo alla ilaahay madaxweynahaas meesha soo ku fiicnaa alla ilaahay kaas halkaas ku xuma alla ilaahay kaas ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inay wax qiimeeyaan qaran iyo warqad qaataan ma ahan inaan ku jirno maalin walba technical timid iyo xaqay noqotay iyo technical saaranaha iyo ana hub badan iyo ruuxaas waa adduunyadu waa ka tagtay maanta waxa la marayaa wadan ummad casriyo technology casriya lagu shaqeynay adduunka oo dhan hal tuulo noqday marka waa inaan la nimaadnaa qiimeyn
iyo inaan dhihi karno hebel meeshaas ku fiican yahay ama meeshaas ku xun waa in la iska dhaafaa qabiilka waa in qof inta meel taga yiraahda Facebook soo dhiga ana meeshii ana saana waxaas in laga gudbo waxa la rabaa aqoontu inay shaqeyso waxa la rabaa alla ka cabsigu inuu shaqeeyo qofba wadankan wax ku noolaanaya lama arko qof walba laba mitru leeyahay qofku difaacayna malaha waxa la rabaa ilaahay inta laga boqo qof walba dalkan meesha uu ka toosin karo inuu ka toosiyo inuu iska daayo dhagarta iyo ana iri iyo danaysiga iyo qof walba inuu rabo asaga danihiisa inuu ku gaaro ma'an waa in danta ummadda laga shaqeeyo waa in danta dalka laga shaqeeyo waa in danta diinta laga shaqeeyaa annagu haween baan nahay waxaan rabnaa oo sheegaynaa say u kala fiican yihiin markii waqtigoodu la gaaro waxaan jeclaan lahaa in debate la qabto ummadda Soomaaliyeed debate loo qabto debate kaasoo dood ah oo la yiraahdo yaa wax qabtay muxuu hebel qabtay muxuu hebel qaatay muxuu hebel ku xumaa muxuu hebel ku fiican yahay in la yiraahdo koow dalka yaa iskale in laga fakaro dalkan yaa iskale dalka marra kaliya iskale marra iyo dumar al iskale yaa iskale dalkan yaa iskale in ayadana lagu xisaabtamo waxaan rabaa dadka aqliga u saaxiibka ah ayagoon qof la caayay ayagoon qof la aflagaadaynin ayagoon qof la si gooniyo loo waxayn ayagoon qofna qabiil lagu faquuqayn ummadda Soomaaliyeed waa ummad walaala waa ummad u baahan maantay ninkii iftiin yar faynus yar shidi kara oo dhihi kara warsaas aanu toosin warsaan soo laakiin yaan dadka la kala cayrin yaan dadka la isku dirin yaan dadka dhibaato loo keenin annaga hadda waa dhaqaaqnay waxaan u jeednaa iftiin waxaan u jeednaa wadda cad inaan cagta sii saarayno waddada cad oo cagta saarayno yaan dhexdeeda dabna la kaga shidin oo nan dayoobin oo nan wareerin haloo tiro ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa gudoomiyaha baarlamaanka adaa maanta mas'uuliyadii lagu dhiibay ilaahay inta ka baqdid ummadaas inta aad ka si fiican inaad ugu garsoortid dadka xaq leh xaqiisa siisid dadka maxay ahayday aan dadka dulminayaan in laga baarlamaanku waa meesha sharciga lagu ilaaliyo sharciga haddii la ilaaliyo oo sharciga aad ilaalisaan oo sharci dejiyaal iyo ilaaliyaal inaad noqotaan oo qofna lagu xadgudbin ayaan anigu kullayba aan jeclaan lahaa marka waxaan kaloo rabaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa dadka waa u jeedaa haweenka iyo caruurta annaga haween iyo caruuran haweenku nabadda biyuha lulunta mee ka maaranta annaga nabadda maarna ninkii wax yar noo qabta iftiin yar waxaan leenahay kaas wuxuu qabtay kii aan u jeedna inuu xina hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala ba wax ka qarsoonay intaan aniga sheegin Allah ba sheegay laakiin in hebel yiraahdo iyo boob iyo qabiil iyo aniga taas waa ka soo horjeedaa doorashada ha socoto si transparency madaxweynaha lagu doorto ninkii calaf u galaan noqonaya ninkii ilaahay u gartaan noqonaya yaan la isdilin yaan la isku dinin yaan bool xoofto iyo laaluush ilaahay laaluushka waa ka hadlay waad maqlayseen aayado quraan oo dhan looga hadlay ilaahay ka baqa ninkii xoolo haysta dalkayaga baahiya ka jirta cudurra ka jira colaada ka jirta dad aan waxba haysana ka jira waliba bishaan kale waa bishii ilaahay subxaanahu wa tacaala quraankiisa ku sheegay sadaqada in la badiyo sadaqada la wado dadka baahan wax la siiyo marka waxaan leeyahay ilaahay ka barya madaxweyne khayr qaba maanta gudoomiye baarlamaanka waa la doortay kii aqalka sare waa dooran yahay kii ku xiga waa dooran yahay kii golaha shacabka iyo ku xigeenadiisana waa dooran yahay hadda waxa noo aan rabno hadii ilaahay idmo nafteena ay gaarto waa madaxweynahana waxaan noqonayaa kii calaf u galo ilaahay waxaan ka baryaynaa mid khayr qaba oo dalkan iyo dadkan daacad waxa ilaahay inuu noo saaro